maxay tahay fariinta ka timi xafiiska madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee laga sheegay magaalada laascaanood ee xarunta maamulka waqooyi bari Soomaaliya? maxaa ka runa hadalka, maxaase ka beena mashaariicdii waqooyi bari laga reebay iyo mashruuc markaasi laga hirgeliyey deegaanada maamulka waqooyi bari kaasi oo ka yimi dhinaca dowladda federaalka ah? Idin soo dhawaada saaxiibayaal mar kale. sida aan la wada soconno waxaa jira mashaariic tiro badan kuwaasi oo ay bixiyeen UNDP, World Bank, African Development Bank oo dhammaantood markaasi mashaariic dhinaca horumarinta ah ka fuliya gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale deegaanada kala duwan ee dalka. haddaba maamulka waqooyi bari Soomaaliya mashaariicdaasi muddo dheer waa uu ka qatanaa. haatan waxaa soo gaaray mashruuc dhinaca korontada ah oo markaasi koronto laga dhalanayo cadceedda ay ka hirgelisay 45 xarumood oo isugu jira markaasi xarumo caafimaad iyo kuwo waxbarasho oo ku yaala deegaanada maamulka waqooyi bari, isla markaasna ay hirgelisay wasaaradda khayraadka biyaha iyo tamarta oo uu madax ka yahay markaasi ama wasiir ka yahay muqaadin ka soo jeeda deegaanada maamulka waqooyi bari waa wasiir xildhibaan Cabdilaahi Bidhaan Warsame. haddaba fariinta laga gudbiyey munaasabad lagu saxiixayay mashruucaasi oo weliba ahaa 2023 isla markaasna waqooyi bari waqtigiisa uu ka sii horreeyay oo la siiyey SSC Khaatumo ayaa waxaa halkaasi fariin aad moodaysay in laga soo dhiibay dhinaca markaasi xafiiska madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka yidhi wasiirka wasaaradda tamarta iyo sidoo kale khayraadka biyaha ee Soomaaliya Cabdilaahi Bidhaan Warsame. waxaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay abaal sheegatay waqooyi bari Soomaaliya oo ay sheegtay inay iyadu dhistay, sidoo kalena waxa ay sheegeen oo wasiirku goobta ka sheegay inay tahay dadka reer waqooyi bari inay buuqa iyo qaylada iska daayaan oo markaasi ay u mahadi celiyaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud. hadalkaasi maxaa ka runa, maxaa ka beena? waan isugu soo noqonaynaa, waana falanqayn doonaa. waxa aan ku dhaliilsanahayna waa sheegi doonaa, balse marka hore aan maqallo in yar oo ka mid ah hadalkii goobta uu ka yidhi wasiir Bidhaan iyo sidoo kale fariintii uu ka siiyey fiila Soomaaliya ee laga sheegay magaalada laascaanood ee xarunta maamulka waqooyi bari Soomaaliya. waa tahay daawadayaal, haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxa weeyaan marka lagu leeyahay dad deegaanada maamulka waqooyi bari waa uu ka horreeyay mashruucani, deegaanada maamulka waqooyi bari ma deegaano markaasi Soomaaliya hadda ku soo biiray oo aan waxbaba ku lahayn dalka oo hadda dalka ka mid noqdayba? miyaysan mashaariicdii hore dalka lagu hirgelin jiray xuquuq ku lahayn? meelihii loo kala qaybiyey ee loogu deeqay mashaariicdii deegaanadan loogu talagalay maa laga daba tago oo dowladda federaalku ka soo celiso isla markaasna deegaanadii loogu talagalay ee iska lahaa maamulka ka mas'uulka gacanta laga saaro? tusaale ahaan mashaariicda dhinaca horumarinta waqooyi bari ka hor ama SSC Khaatumo ka hor waxaa loogu dhiibi jiray maamulada Somaliland iyo sidoo kale Puntland oo loo kala qaybin jiray, kuwaas oo deegaanadooda ka fulin jiray isla markaasna mashaariicdaasi leexsan jiray. hadda dowladda federaalka Soomaaliya waxay mar walba la soo taagan tahay mashruucani uu ka horreeyay reer waqooyi bari Soomaaliya. reer waqooyi bari Soomaaliya mise Soomaali ahayn 18 gobol ee Soomaaliya mise ka mid ahayn dalka markii hore wax qaybsanayay ee mashaariicda markay timaado loo qaybinayay kumaba aysan jirin miya? waa su'aal muhiim ah oo mudan in la isweydiiyo. tan labaad, waxa uu sheegay in xasan sheekh maxamuud uu dhisay maamulka waqooyi bari Soomaaliya, taasi oo runtii ah war been ah oo cad. xasan sheekh maxamuud waa looga mahad celinayaa waajibkiisii ahaa intii kaga beegnayd inuu ka soo gutay oo weliba uu ka gaabiyey oo aynu ogeyn dhibkii laga maray inuu xitaa yimaado xafladda calabasaarka isagoo ku raaligelinaya Hargeysa. laakiin haddana dhanka kale si kastoo ay ahaataba ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu waa ku mahadsan yihiin in ay ka qayb qaateen dhismaha markaasi waqooyi bari Soomaaliya sidii dadka inta la isugu keeno maamul ballaaran deegaanadaasi looga hirgelin lahaa. laakiin dadka reer waqooyi bari naf iyo maal iyo waqti ayay ku bixiyeen in ay halkan soo gaaraan. maamulkooda cid uma dhisnaya gacmahooda ku dhistay. haddii cid looga mahad celinayo oo mahad celin ay cid mudan tahay, waxaa markaasi mahad celintaasi mudnaan lahaa dadka reer waqooyi bari oo midnimada u dagaalamay, u dhintay, dhiig iyo dheecaan u shubay, dhabaale ku bixiyey, iyadoo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay dibadda ka riixaysay kooxihii markaasi go'aan-go'aadka ahaa iyo kuwa kale ee dowladnimada ka horjeeda ee garowa fadhiya. waa tiimka daniye oo kuwaasi ula dagaalamayay dowladda federaalka ee Soomaaliya. dowladda federaalkuna dabcan ay markaasi leefleefaysay oo ay siinaysay mashaariicda horumarinta. ilaa haddana waxaan la soconnaa in mashaariicda fulay sanadihii ugu dambeeyey oo dhan oo xasan sheekh maxamuud xafiiska joogay inay ka fuleen Somaliland iyo Puntland, balse waqooyi bari waa mashruucii ugu horreysay ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ka hirgelinayso. waa 2 milyan oo iyo badh sida uu sheegay wasiirkan markaasi ka soo jeeda deegaanada maamulka waqooyi bari ee fariinta loo soo dhiibay. laakiin intani kuma filla waqooyi bari Soomaaliya.
waqooyi bari iyadaa mudan in loo mahad celiye inay iyadu cid u mahad celiso oo laga dalbado maanta may ahayn. xasan sheekh maxamuudna haddii uu ka qayb qaatay dhismaha waqooyi bari waa waajibkiisii dastuuriga ahaa ee u dhaafsanaa ee uu ku matelay ummadda Soomaaliyeed ee uu ku matelay dowladda federaalka ee Soomaaliya. xasan sheekh maxamuud maaha madaxweyne xamar iyo banaadir uu madaxweyne u ah ee waa madaxweynaha Soomaaliya oo dhan. marka uu ku qasbanaa inuu yimaado laascaanood, uu ku qasbanaa dadka reer waqooyi bari waxa ay dhisteen inuu ku taageero oo ku garab istaago, inkastoo uu ka gaabiyeyba oo isaga in la dhaliila ay ahayd, haddana waxaa la yidhi caano daatay dibadood la qabay. tallaabooyinka dambe uu qaaday waxaad moodaa xoogaa inay dhaamaan kuwii hore iyo habdhaqankiisii hore ee xilliga dagaalku socday, iyo sidoo kale xilli intii uu xafiiska ku cusbaa cabdiraxmaan Ciro oo ay hoos ka tooriyo xiriir hoose lahaayeen, isla markaasna dowladda federaalka Soomaaliya laftigeedu ay ka qayb qaadatay doorashooyinkiisii iyo fangareyntii doorashooyinkiisa, sida ay marar badan markaasi soo baxday warbixino arrimahaasi tibaaxaya ama hadallo arrimahaasi markaasi ku qotama. adigu haddaba sidee ayaad u aragtaa dooda ah wasiirka uu jeediyey ee ka timid dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya ee sheegaysa in reer waqooyi bari ay ahayd inay aamusaan oo u mahad celiyaan dowladda federaalka Soomaaliya? aniguna aan soo jeedinayo dowladda federaalka Soomaaliya waa inay u mahad celisaa deegaanada maamulka waqooyi bari, dekedda Laasqoray ay si degdeg ah ugu dhistaa oo ay markaasi mashaariicda lagu talagalay lagu horumariyo ay dedejisaa, sidoo kale ay mashaariicda horumarinta deegaanadaasi ka qabtanayaan 35 sannadood ay keento, isla markaasna aysan khadar u noqonayn dowladda federaalka ee Soomaaliya in markaasi ay tiraahdo mashruucaasi weydin ka horreeyay. ilaa dadkan waa dad Soomaaliyeed, dalka leh, xaq ku leh, dhulka intaa leeg degan. mashaariicda dowladda federaalka ee Soomaaliya la keenana Soomaaliya dhan baa la siiyey, loogu deeqay, cid gaara looguma deeqin, maamul goboleedyo gaara looguma deeqin, dadka Soomaaliyeed oo dhan baa markaasi loogu talagalay in lagu horumariyo deegaanadooda. marka way kaa horreysay macnaheedu ma haddaan Soomaali noqonnay oo markii hore Soomaaliba maanan ahayn miya? meesha ninkii goonigoodka ahaana mashaariicda lagu baryay la siinayo, haddana ninkii u dhimanayay midnimada ee u taagnaa ee ka shaqaynayay ee dhiig iyo dheecaan iyo waqti iyo markaasi ku bixiyey maalba la leeyahay mashaariicda ka horreysay oo waa inaad sugtaa kuwa dambe. xataa wasiirka laftigiisa waxa uu goobta ka sheegaya in mashaariicdu ay qaadato waqti dheer, isla markaasna maamulada hore ee laga hirgeliyey Soomaaliya laftigoodu ay muddo dheer sugayeen in deegaanadooda markaasi laga hirgeliyo mashaariic. waan u gudbi doonaa falanqayn gaar ah iyadana saari doonaa hadalka madaxweynaha dowladda waqooyi bari ka soo yeeray oo isaguna runtii la yaab ku noqday dad fara badan oo markaasi reer waqooyi bari ah, balse muuqaalkan waxaan kaliya diiradda ku saaranay hadalka iyo fariinta ka timi fiila Soomaaliya ee ku aadan deegaanada maamulka waqooyi bari iyo aragtideenna arrintaasi markaasi ku qotonta.